iyadoo xeebta Liida ee magaalada Muqdisho ay tahay xeebta ugu quruxda badan ee Soomaaliya inta badan ummadda Soomaaliyeedna u soo dalxiis tagaan ayaa ammaanka xeebta waxa xaqiijiyay ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyagoo sheegay in saldhig cusub ay ka furi doonaan si loo adkeeyo ammaanka dadka dalxiisayaasha taliyaha booliiska qaybta bartamaha sareeya guuta Garaad Nuur Cabdulle oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyay in dhawaan ay ku rajawan yihiin in xeebta Liida ay ka sameeyaan saldhig cusub maadaama ay aad u farabadan yihiin shacabka imaanaya maalmaha Jimcaha iyo Khamiistana ay kordhiyeen ciidanka ilaalada booliiska ee xeebta Liida oo maantana ay ku sugnaayeen qurba joog aad u farabadan oo ka kala yimid dalalka Norway, Ingiriiska, Mareykanka iyo wadamo kale oo aad u farabadan ayna kamid ahaayeen kooxda qayladhay oo maalintii shalay soo gaaray magaalada Muqdisho. Cabdishire Jaamac Joogle ciyaar jecel iyo Cabdixakiin Ciise Geedi Faryare ayaa si isku mid iyagoo ku sugan xeebta Liida warbaahinta Soomaaliyeed uga warramay dareenkooda maadaama ay ku sugan yihiin xeebta Liida. meeshan taaganahay waa farxad aan qiyaasi karin insha Allah waxaan rajaynayaa taagnaashahan iyo nabadan iyo habiga hadda aan ahay in ummadda inta maqan iyo inta joogto aan isku qaybsano inta nolosha nooga dhiman nabaddu waa laga maarmaan nabadan halkan maanta ay keentay iyo maartay inay ummadii fahmeen problemka maartay noocyo badan oo leeyahay ilaa 20 iyo dhowr sano ku jira dhibkan waddanka inuu nabad yahay ummadda Soomaaliyeed ee dibad joogta ama gudaha joogtaaba inay arkaan baa muhiim ah yaani annagii macnaha qayladaan u ooyeenay dhibkii dhacay ayaa maanta dhex taagan waxaan leenahay marka ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogta dalkiini waa nabad ku soo noqda waxa inta gaarsiin waxa waa dadaal dawladdu dadaashay militariga iyo geesinimo u dagaalamay marka waa alxamdulillah rabbil caalamiin laakiin anaga xagga farxadda anaga ahaan nin 26 sano waddankiisa ka maqan oo caaw nabad ku dhex seexday farxad la qiyaasi karo ma qaar kale oo qurba joog Soomaaliya oo ka kala yimid dalalka Ingiriiska, Mareykanka iyo Norway ayaa aragtidooda Soomaaliya ka dhiibtay maadaama muddo badan ay ka maqnaayeen iyadoo qaarkood aysan ba aqoonin luqadda Soomaaliya kaliya ay yaqaanaan Englishka. It's good. It's beautiful. I like the beach and everything, you know. It's very nice, very different, you know. Send the message for the kids in what about the North America, Western and Europe, even Africa. Oh, it's good to know your heritage, you know. It's good to know where you came from and everything. So, you know, it's a very new experience. You know, I was never in Somalia before, so this is very new. But it's first time you come. Yeah. First time. xeebta Liida ee magaalada Muqdisho Jimcaha iyo Khamiis walba waxa yimaada shacab weyn aad u farabadan oo markaasi u soo dabaal taga iyadoo roob ka da'ay magaalada Muqdisho awgeedana shacabkii ka qayb qaadanayay dabaasha ay aad u yaraadeen waxa sidoo kale qayb ka ahaa dadka Soomaaliyeed ee qurba jooga gaar ahaan fanaaniinta qayladaan waa wareey oo iyagu maanta halkan u yimid in ay daawadaan Hindiya Xaaji Maxamed TV-ga qaranka Soomaaliya Muqdisho.